kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal maanta waxaan ka hadli doonaa hal qiso oo jacayl oo dhab ah taasoo aan ugu magac darnay jacayl dhaxalgala wax dhaama la waa taasoo ay nala soo wadaageen wiil iyo gabadh ay ku dhacday daawade waan hubaa haddii aad qisadan daawato in ay ku anfacso haddaba daawade qisadan waxaa la soo wadaagay wiilkii iyo gabadhii ay ku dhacday taasoo mid waliba gaarkiisa ka warramayo haddaan ku hormaro inanta hadalkeeda intaynaan u gudagelin fadlan haddii aad daawada hayso qiso ama arrin aad jeceshahay in aad bulshada la wadaagto noogu soo gudbi nambarkan shaashadda kaaga muuqda adiga oo ku soo gudbin kara muuqaal qoraal iyo weliba cod habkaad jeceshihiin waad mahadsantihiin inanta hadalkeedii ayaa u dhignaa sida tan inan baan isbarannay bishu markay ahayd labadii bishii 7 2017 inankii aad waan isku dhex galnay kadib inankii aduu saan u wada soconnay aduu inankii isaga xagga jacaylka igaga horreeya oo waayo ani markaa hore waan iska indhatiriyay jacaylkiisa oo waayo jacaylka waxba kama aqaanin taas ayaa keentay inaan inanka noocan doolo ula dhaqo oo aan sidan doono ka yeelo aduu inankii wax badan uu ii sheegay inaanu aniga la'aantay noolaan karayn kadib aduu inankii ma aansan dhegaysan hadalkiisa ilaan jacayl waxba kama aqaanee kadib aduu waxaa dhacay in aan guurno oo aan magaaladan deganayn meel ka fog tagno aduu inankii sidii baan isku ilownay kadib markaan ka fogaaday inankii aduu waxaa ii galay dareen aduu ilaa muddo dhan waan kala maqnay inankii waxaan imi magaalada uu joogay sannadka bacdii waayo anigii ugu dambeeyey jacaylkii waxaan rabay inaan soo ceshto farxaddii isiin jiray aniga oo iska indhatiraya berigii hore ayaa waxaan dareemay qiimahu jacaylku leeyahay xanuun badan ayuu igu raabay waayo marnaba ismaan lahayn jacayl baa ku gelaya waayo taasaa keentay waayo kama aansan fikrin inuu jacaylku xanuun leeyahay kadib inankii dib ayaan u kolanay waayo ismaan lahayn waad wada kulmaysaan aduu waan ishaleelnay kadib waan wada xidhiidhnay markaan wada sheekaysananay muddo 4 bilood ayaan haddana kala fogaannay taas ayaa igu dhalisay xanuun badan werwer dhaawac dhinaca qalbigayga soo gaadhay kadib sidaan isku ilowsiin lahaa ayaan falowgeeda galay waxay igu qaadatay sannad sidaan isku ilowsiin lahaa anoo rafaad la soo maray xanuunka jacaylka laakiin markaan xasuusto qalbigayga uu ku sii qoran yahay taas macnaheedu ma aha in aad jacaylka dhaqsi lagu ilaawo horaa loo yidhi qof wax jecel ma quusto kadib aduu jacaylkii siduu sidaa aan ula silcayay ayaan iska ilaaway ayaa waxaan galay kadib waxaan dhacay in aan dadku ila yaabaan markaan dhegaysanayo heesaha jacaylka taasoo qalbigayga aad u dhaawacaysay iminka laakiin waxaan helay qof ii ilowsiiya dhibtaan soo maray iyo rafaadkii ismaan lahayn waxaad heli doontaa qofkii ilowsiiya laakiin qofkaad jeceshahay marnaba ma ilaawisid oo qalbigaagu ku sii xusan yahay raad ayaanu kugu reeb haddaba daawade haddaan u gudbo inanka siday inantu inoo sheegtay waxay isbarteen 2017 wiilka iyo gabadhu waxay isku hayeen jacayl aad u darnaa oo mid waliba midka kale u qabo qofku doonaha ku sii weynaado jacaylkiisa isku qabeen ayaa waxa ay keentay in ay fariimo jacayl oo dhambaal ah isku soo diraan badanka ma aysan kulmi jirin laakiin waxaa jiray inay mar waliba iska hor imaan jireen si kadis ah oo markay indhaha qac isku siiyaan ay aad u farxi jiray wiilku isaga oo dareemi jiray kalgacal iyo faraxti oo markaa wiilka iyo inantu isku xaafad ayay ahaayeen haddaba sidii ay sidaa u ahayd ayaa waxaa dhacday gabadha xaafaddoodu ayay ka guuraan meeshii ay deganaayeen weliba si kadis ah haddaba habeenada ka mid ah ayaa inantii waxay fariin soo fartay wiil ay saaxiib yihiin inay ka isjeclaayeen fariinta ayaa sida tan u dhignayd walaad waxaad u tagtaa hebel waxaad ku tidhaahdaa jacaylkaaga waxay ku tidhi xabiibti waan guuraynaa oo waan ka tegnaa magaaladan oo waxaan baxaynaa biri subaxa ee intaynaan guurin waxaan rabaa inaan is aragno nasiib darro wiilkii fariintu u socotay ma aysan gaadhin fariinta si dhaqsaa maadaama wiilku waxuu xilligaa ku jiray arrimo shaqo aduu inantii xaafadii way ka guureen ilaa 4 bilood wax xidhiidha ma aysan samayn way kala mashquuleen iyadoo mid waliba jacayl la il darnaa
haddaba iyadoo sidaa ay ahayd gabadhii waxay soo wacday inankii si kadis ah. aduu haasaawo dheer kadib wiilkii ayaa waxa uu sheegay inantii in uu rabo inuu aado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo waqtiga uu aad u xiiseynayo inuu tago. inantii markay arrinkaa maqashay aad ayay uga hortimid iyadoo oo diiday oo ooyaysa ayay tiri sida tan: xabiibti, maxaad xamar ka doonaysaa? Muqdisho waad og tahay nolosha taala iyo amnidarrada ka jirta ee aniga dartay u joog. inanku oo markaa xamar aadisteedu wax waliba uga muhiimsanayd waa uu ka yeelay jacaylkiisa oo uu damqanayay darteed. markaa uu iska daayey safarkii oo uu hadalkeedii maqlay, inantii waxa ay soo bandhigatay guur xalaal ah oo ah inay noloshooda wadaagaan. inankii waa uu ka diiday isaga oo leh: xabiibti, waan ku jeclahay, waxaan rabaa inaan nolosha kula wadaago, weliba si farxad leh ee in yar isug oo aan shaqeeyo. isaga oo ka baqaya inuu inanta ka soo galaafto qoyskooda, isagoo aan noloshayda kafan karin, oo raba inuu u howlgalo caqabadaha ka horreeya guurka, isaga oo ka fikiraya aayaha dambe. way isku raaceen arrinkii. wiilkii waxa uu labalaabay shaqo uu markii horeba hayay, isagoo u hanqaltaagaya inuu nolosha maalin maalmaha ka mid ah ayaa inantii waxay soo booqatay magaaladuu joogay inankii iyadoo aanu sheegin. inankii oo xilli duhur ah isagoo oo la joogay asxaabtiisa ayaa lagu yidhi: waxaa joogta hebla oo rabta inay kula kulanto. wiilkii aad ayuu u naxay oo waayo kama uusan filayn, kama uuna diyaargaroobin, isagoo oo xilligaa shaqada uu gelayo ay ka dhiman tahay 1 saac oo keliya ayaa waxa uu kalba dhinac u cararaba waxa uu jeclaystay inuu la kulmo, isagoo xilligaa ku socday shaqadiisa oo uu inaba baajin karayn. muddo 20 daqiiqo ah ayay is arkeen, iyaga oo markay indhaha isku dhufteen uu mid walba midka kale ka jeesan waayey. ay aad isku fiirinayeen ayaa waxa yaabay asxaabtii kale la socotay oo gacan u taagay kalgacaylka ay isku hayaan. wiilkii oo waqtigu erinayo rabana inuu iska sii daawado indhaha quruxda badan ayaa waxa ay gaadhay waqtigii shaqadiisa. kabacdi inantii ayuu waxa uu ku yidhi: hebla, walaal, waan shaqo tegayaaye ee caawa oo keliya ii samir oo xaggan joog si aan ku. inantii ayaa waxa uu sheegtay in ay biri bixi rabto. inantii ayaa waxay tidhi: waxaan baxayaa biri ee haddaad iga soo gaadhiso caawa waa adiga nasiibka. wiilka ugu shaqo tegay isaga oo ka fikiraya siduu inanta ula kulmi lahaa, isaga oo degdegaya ayaa wuxuu ku soo booday gaadiidkii uu baxayay. nasiib darro, marka uu gaadhay xaafadii ayaa waxay inantii u sheegtay in ay baxay oo ay inankii aad ayuu u naxay oo waxa uu jeclaystay inuu gaadho suuqa inta ayna raacay gaadiidka tegaya halkii uu socdo. isagoo cararaya oo faahfaahsan ayaa waxa uu oo dhiidka ka daaya la moodayo inay wax kala heleen. nasiib wanaag waxuu ku gaadhay suuqii cabbaar 9kii habeenimo. inantii waxay tidhi: waa xilli dambe ee waa lay qabsanayaa. wiilkii waa uu ka oggolaaday. ilaa 30 daqiiqo ayay laamida wada socdeen iyaga oo gacmaha is haysta. wiilkii 30 daqiiqo waxay kala badnayd kaftan iyo sheeko. kadib way ismacasalaameeyeen oo way kala tegeen, isaga oo uu jacaylkoodu sii awoodaystay. way isla soo xidhiidhaawaday qisadan ma dhowa oo waxa haray intaa in leeg.